ku soo dhawaada daawadayaal Taageera TV iyo barnaamijkii falanqaynta ciyaaraha. Waxa barnaamijkeedna la socodsiin doona anigoo ah Yoonis Odawa. Laga ciyaaray horyaalka Premier League oo bilaabmay weekan. Haddii ugu horeysiino ciyaartii dhexmartay kooxda West Ham United iyo Man City, ciyaartaas waxay ka dhacday garoonka London Stadium ee magaalada London. Waxaana guusha ku raacday kooxda City oo ku badisay 5 gool iyo eber. Raheem Sterling ayaa hat-trick ciyaarta ka dhaliyay wacdara ka dhigay iyo Aguero oo penalty dhaliyay iyo Gabriel Jesus. Ciyaarta waxaanu ka baranay ama guud ahaan toddobaadkan wareegan waxaanu ka baranay horyaalka Premier League in gaab weyn u dhaxeeyo kooxaha Liverpool iyo City iyo 18 kooxood kale Ingiriiska uu noqon doono maxaa hayday tartankan horyaalka Premier League sanadkan uu noqon doono tartan laba faras la ah oo ay ku tartamaan kooxaha Liverpool iyo City. Haddii ku soo noqono ciyaarta City iyo West Ham, ciyaartaas waxaanu ka baranay in oran karnaa Raheem Sterling oo dhaliyay hat-trick ama 3 gool. Guardiola ayaa ciyaarta ka bacdi waxa uu yiri Raheem Sterling sanadka waxa way laga yaabaa inuu noqdo weeraryahan. Ciyaarihii saaxiibtinimo wuxuu ka qayb galay oo uu noqday weeraryahan waa laacib ka ciyaari kara saddex meelood ee weerarka isagoo noqon kara weeraryahan number 9 ah iyo number 7 iyo number 11. City waxa kale oo ay dheer tahay kooxaha kale inay haystaan lix laacib oo key players ah, mafaatiix laacib waxa loo yaqaano. 6 لاعب oo kubadda bedeli kara ciyaarta bedeli kara waxay kala Sané, Silva, Bernardo Silva, De Bruyne, Aguero iyo Raheem Sterling. Sanadkii hore City waxa ka dhaawacay De Bruyne, Kevin De Bruyne oo dhaawac ku maqnaa haddana liiga way qaaday. Sanadkan waxa ka dhaawacan Leroy Sané oo laga yaabo inuu 6 bilood garoomada ka maqnaado ama inta ka hadhay ciyaaraha sanadkan. Laakiin City taas ma saameynayso oo waxay haysataa لاعبين kala duwan oo difference ka sameynaya. ciyaarta City iyo West Ham waxa kale oo aynu ku aragnay VAR ama video technology oo aan murankii xagga siriga ee horyaalka Premier League ka jiray aan soo afjarin. Gool baa laga diiday City sax ah sida aynu sawirkan ka arkayno. waxa kale oo ay dhalisay gool la oran karo wuxuu ekaa offside. marka waxa la oran karaa VAR oo la islaha waxay sameynaysaa difference weyn farqi weyn way sameeyno sirigi murankii ka tagnaa sidii uu uga taagay. haddii uu gudubno ciyaartii Liverpool iyo Norwich City, Liverpool 4 gool iyo hal bay ku badisay. Mohamed Salah ayaa isaguna wuxuu dhaliyay 3 sano ee uu joogo horyaalka Premier League ciyaartii u horeysay min gool buu dhaliyay. bilowgii xilli ciyaareedka 2017 gool buu ka dhaliyay Watford. sanadkii hore kulankii lagu furay ay Liverpool ku furtay horyaalka Premier League West Ham dhexmareen gool buu dhaliyay. sanadkan ana ciyaartii horeysay gool buu dhaliyay. marka waxa la oran karaa wuxuu sii wadaa gool dhalintii tiraha badneyd ee uu horyaalka Premier League looga bartay Mohamed Salah. dhinaca kale Roberto Firmino ayaa soo wacdara ka dhigay oo laacib aad wanaagsan ciyaartaas. waxa kale oo isagana ciyaarta wacdara ka dhigay inanka yar ee loo yaqaano Trent Alexander-Arnold oo sameeyay gool kamid ah 4 gool ee Liverpool ku badisay. Trent Alexander-Arnold wuxuu sida ku sameeyay 5 ciyaarood Premier League u dambeysay ayuu sameeyay goolal oo ka caawiyay ama waxa loo yaqaano African English assist. wuxuu jabiyay rekoodka hore haysteen Mesut Ozil iyo Cesc Fabregas. 4 ciyaarood oo sanadkii hore iyo ciyaartii ugu horeysay ee sanadkan ayuu Alexander-Arnold rekoodka ku sameeyay. marka waxa la oran karaa Liverpool waxay haysataa number 2 waxa uga ciyaara nin playmaker ama nin number 10 ah, kubad sameeye iyo gool sameeye. haddii uu gudubno ciyaartii dhexmartay kooxda Tottenham iyo Aston Villa, ciyaartaas waxay ka dhacday garoonka cusub ee White Hart Lane ay dhisatay kooxda Tottenham. ciyaartaas waxa wacdara ka dhigay ninka la yiraahdo Tanguy Ndombele waxa uu dhaliyay gool aad u qurux badan. طبعا هو laga horeeyay kooxda Tottenham goolka laakiin 3 gool bay ka daba keentay. Tanguy Ndombele ciyaarta wacdara fiican buu ka dhigay laacibka soo ibsatay Tottenham. wixii xasuusiyay laacibkaasi Michael Essien, laacibka hore kooxda Chelsea. waa nin kubadda jari kara, jiidi kara, kubadda dhalin kara oo si fiican u shoodi kara, nin u gasi kara. waa runtii waxa la oran karaa waa laacib dhameystiran dhexdana control kara. marka Tottenham dhexdeeda sanadkan wuxuu xoojisay. dhinaca kale waxa labada gool kale u dhaliyay kooxda Tottenham ninka la yiraahdo Harry Kane
Harry Kane oo abaari ka haysatay gool dhalinta bisha ugu horeysa liiga ee August waxa la oran karaa Harry Kane waxa uu soo afjaray abaartii ka haysatay gool dhalinta bisha August marka waxa horyaalka Premier League طبعا Tottenham waxa la oran karaa way soo gaabisay gaabkii u yar dhaxay City iyo Liverpool wali labada kooxood baa ka sareeya haddaynu u gudubno ciyaartii Man United iyo Chelsea ciyaartaas waxa xasuuq ba'an ay Man United u geysatay kooxda Chelsea ciyaartaas waxay ciyaartii horeysay Frank Lampard uu tababaraha kooxda Chelsea waxa ciyaartaas ku soo gabagabowday 4 gool iyo eber waxa wala soo kala dhaliyay Rashford oo 2 gool dhaliyay Martial iyo Daniel James oo goolka afraad dhaliyay waxa ma la oran karaa xasuuqa ay Man United u geysatay Chelsea waxa wuxuu muujinayaa gaabka u dhaxeeya labada kooxood anu waxaan oran karaa ma cid kasto ciyaarta daawaneysay Chelsea kubadeeda maamuleysay laakiin United afar fursadood bay heshay afartii fursadood bay ka faa'iideysatay Chelsea laba jeer bay birta garaacday run ahaantii xagga tactically xagga dhinaca tactiga marka laga hadlayo Chelsea aad bay wanaagsaneed laakiin may soo bandhigin may dhalin gool marka kubadana waxa la yiraahdaa waa goolal haddii aad ka faa'iideysan fursadaada waa laga dhalinayaa marka Chelsea run ahaantii habeenka natiijo aad weyn bay ahayd laakiin waxa la oran karaa gaab weyn labada kooxood aad marka la dhaxeeyo marka laga eego dhinaca adaaga ama dhinaca bandhiga ciyaartan oo aragnay dhinaca Chelsea waxa iyadu dhibaato ka haysta xagga difaaca waxa ay ku ciyaaraysaa laba nin kala Zuma iyo Christensen Zuma ayaa qaladaad badan sameeyay David Luiz bay dabcan Arsenal Chelsea ka iibisay weekii hore labada laacib Zuma iyo Christensen labaduba shalaati jir oo ka yihiin khibrad badan uma laha marka Chelsea sanadka waxa la oran karaa qalad baa hidinay iibisay David Luiz laga yaabo inay ka qayb qaadato in Chelsea ay sanadkan ka soo qayb gal weydo afarta kooxood ugu horeeya haddaynu u gudubno ciyaartii dhexmartay kooxda Arsenal iyo Newcastle Arsenal sanadka waxa weey sanadii hore waxa ka soo waajay jiray mushkilad garoonka St James Park Newcastle laakiin sanadka hal gool iyo eber bay ku badisay Aubameyang oo run ahaantii laacib aad u wanaagsan ayaa goolka u dhaliyay waxa la oran karaa Aubameyang halkii uu sanadkii hore ku dhameeyay uu ka sii bilaabay bandhig ciyaareedkiisa wanaagsan ee goolashiisa badnaa Arsenal 6 laacib baa ka maqnaa laakiin waxay ciyaarta way badisay waana waxa la oran karaa gool muhiim ah oo ka saacidi karta inay sanadka ay ku dhamaysato afarta kooxood oo horeeya sida waxa halkan ku arkaynaa kala sareynta horyaalka Premier League waxa uu sareeya Man City Man United baa ku xigta Liverpool Burnley Brighton Arsenal ayaa kaalmaha horeeya ku dhamaan goolal ka soo xaqiijiyay ciyaartii horeysay wareegan xagga hooseynta waxa ugu hooseysa dabcan West Ham iyo Chelsea oo laga badiyay natiijooyin waaweyn waa wareegii horeeyay kulay aad buu isu bedeli doonaa kala horeynta horyaalka Premier League halkan waxaan ku arkaynaa iyadana ciyaaraha soo socda weekan la ciyaari doona waxa lagu furi doonaa horyaalka Premier League weekan ciyaarta dhexmari doonta Arsenal iyo Burnley oo labaduba gool ka soo hooyay ciyaartii hore weekii hore Liverpool waxay u safri doontaa Southampton garoonka St Mary laakiin ciyaarta ugu weyn toddobaadkan waxay dhexmari doontaa kooxaha Man City iyo Tottenham ciyaartaas oo aad loo sugayo noqon doonta run ahaantii ciyaar aad u adag oo aynu dhammaanteen wada sugayno balowna eegna Tottenham inay qabato City oo ay ugu yaraan soo xaqiijiso barbardhac hadda waxa la ciyaari doona Chelsea iyo Leicester ayaa ciyaari doona garoonka Stamford Bridge waxa lagu soo khatimi doonaa ciyaarta toddobaadkan garoonka Wolverhampton iyo kooxda Man United oo maalinta Isniinta balwayna wada eegnaa halka ay ciyaaraha weega dambe ay ku dambeeyaan ciyaaraha horyaalka Premier League halka waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkan falanqaynta ciyaaraha oo aynu ku eegaynay toddobaadkan